wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa magaalada Alexandria ee dalka Masar kaga qayb galay shirka wasaaradaha duulista dowladaha Carbeed shirkan oo ahaa mid sanadkiiba mar ay yeeshaan wasiirada gaadiidka ee wadamadan ku jira jaamacadda Carabta ayaa ajandihiisu ahaa sidii ay dowladahaasi u adkeyn lahaayeen xiriirkooda ku aadan xoojinta iskaashiga gaadiidka. Kulanka ayaa lagu go'aamiyay in dowladda Falastiin laga caawiyo dhaqaalaha gaadiidka iyo in hay'adda socdaalka adduunka IOM ay xafiis ka furato magaalada Qaahira in la isla qaato shuruucda oo dhawaan midowga Yurub ka soo saareen duulista hawada iyo qodobo kale. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Omar ayaa soo jeedinta wasiirka gaadiidka Carabta kalsooni u muujiyay isagoona sheegay in mar walba ay dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay garab istaaga walaalahooda reer Falastiin. Mudane Omar iyo dhigiisa dalka Masar ayaa ka wada hadlay in labada wasaaradood ay si gaar ah ay isaga kaashadaan horumarka gaadiidka. Wuxuuna sidoo kale wasiir Omar kulan la qaatay madaxda Akadeemiyadda Culimada Gaadiidka oo hoostaga jaamacadda Carabta isla markaana halkaasi uu kulan ka dhacay waxa ayna ka wada hadleen sidii loo kordhin lahaa deeqaha waxbarashada ee ardayda Soomaaliyeed ay ka helaan akadeemiyadda iyo in wasaaradda gaadiidka loo soo diro koox farsamo ah oo ka caawisa dejinta siyaasadda gaadiidka. Wasiirka ayaa ugu dambeyn casuumaad gaar ah u sameeyay 5 arday oo dhigata akadeemiyadda culumta gaadiidka wuxuuna kula dardaarmay inay sii laba jabaaraan dadaalkooda waxbarashada isagoona ku dhiirigeliyay in ay yihiin mustaqbalka dalka. Yuusuf Maxamed Axmed Galmudug TV.